dhammaanteena waxa ina soo mara waqtiyo adag oo aan dareeno kalsooni daro. xilliyadaas waxa aan gaarnay heer aan nafeena nacno liidnaanta iyo xaaladaas aan ku sugannahay awgeed. laakiinse marka kalsoonida nafta oo yaraata in naqata dhibaato muddo dheer socota waxay kugu yeelan kartaa saameyn xun oo ku timaada caafimaadkaaga, maskaxdaada iyo nolol maalmeedkaaga. kalsooni la'aanta nafta waa qofka oo ka shakiya naftiisa iyo awoodihiisa. ma dareentaa cabsi iyo xishood marka aad dadka ku dhex jirto? mala gabataa fikirkaaga iyo ra'yigaaga xitaa haddii aad tahay qof aqoon u leh wax laga hadlayo? ma kugu adag tahay inaad dadka maya dhahdo marka wax aadan ku qanacsanin ay kaa dalbanayaan? hadallada dadka iyo ficladooda si zaid ma kuu saameeyaan? haddii aad la ildaran tahay kalsooni daro, muuqaalkan waa kaaga. waxaan kula wadaagi doonaa 30 xeeladood cilmi nafsi haddii aad isticmaasho oo kaa dhigayaan qof aan la xakameyn karin. muuqaalkan kadib hubaal kalsooni daro kama caban doontid. intaan muuqaalkeena xamaasada leh u gudagelin, waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa hal like iyo hal subscribe na saarta muuqaalkan una sii share gareys asxaabtaada. haddana ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. xeelada koowaad, isdeji markuu qofku isku dayayo inuu kaa xanaajiyo. haddii aad tahay qof caadhifi ah si fududna loo kicin kara caradiisa, xeeladan isticmaal. mar walba oo lagaa caraysiiyo isdeji oo keliya. si walba gudaha aad kaga gubanayso, ha muujin waxa aad dareemayso. dadku waxay guul iyo reerayn dareemaan qofka ay ka xanaajiyeen marka ay arkaan isagoo caradiisa iyo qeyladiisa banaanka keenay. qofka kalsoonidiisa liidata iyo dadka xakameeyaan siday doonaanna ka yeeshtaan. haddii aad rabto inaad noqoto qof ay adag tahay in la kontrolo caradiisa, xamaasadiisa, noloshiisa, keliya noqo qof ka adag dareemihiisa waqti walba, xitaa haddii aad marayso xaaladda ugu adag noloshaada. xeelada labaad, si zaid weligaa waxa u sharxin xaaladahaaga nolosha iyo duruufaha aad marayso. cid walba u sharxin. wax hadday kugu dhacaan hal mar si cad runta u sheeg, kadib isaga gudub. haddii aad heryahayn aad u noolaato dadka inaad hadal ku qanciso, waxaad lumin doontaa qiimahaaga iyo waqtigaaga. maxaa yeelay dadku waxay dhegaystaan waxa ay rabaan keliya inay maqlaan. marka haddii aad rabto inaad noqoto qof aan la xakameyn karin, ha ku lumin waqtigaaga iyo tamartaada qancinta dadka. xeelada saddexaad, baro inaad maya dhahdo dadka adigoon sharxin sababta. xeeladan waa tiirka kalsoonida nafta. wax walba oo aad raalli ka ahayn maya dheh sabab la'aan. ha ku qiimeynin waxaas miisaankooda in la samayn karayo in kale, iyo inaad isdhahdo qof agtaada ku weyn ayaa kaa codsaday kama diidi kartid waxaas inaad u samaysid. waa sababta kaa dhigtay inaad dadka u hogaansanto indha la'aan. haddii aad rabto inaad noqoto qof kalsooni dhammaystiran isku qaba, ayna adag tahay in la xakameeyo, maya ku dheh wax walba oo aad u aragto inay kuu cuntamaynin adigoon u fiirinaynin qofka waxaas kaa dalbaday. xeelada afaraad, dib u dhig falcelintaada. haddii aad tahay qof degdeg badan falcelina hore ka muujiya, waxaad haysaa wadada burburkii kalsooni darada. wax hadday kugu dhacaan marka hore hubso. hadalkaaga ficilkaaga ay noqon wax durba muujiya jileeca shakhsiyadaada oo intaada dib waad u dhigan kartaa. xaalad walba aad nolosha marayso, haddii aad noqoto qof durba falcelin aan bixinin, way ku adkaan doontaa qof walba oo jecel inuu kugu arko adigoo murugaysan ama xanuun dareemayo inuu farxo. marka aad noqoto qof aan jabin xaalad walba oo marayo noloshiisa. xeelada shanaad, su'aalo weydii intaad isdifaaci lahayd. xeeladan waa muhiim haddii aad tahay qof neceb in la eedeeyo. marka uu dhaleeceyn la kulmana dareemo liidnaan iyo kalsooni daro, isticmaal farsamadan. marka lagu dhaleeceeyo caroon, qofka ku dhaleeceeyey keliya weydii su'aalo ku saabsan mawduuca uu kugu dhaleeceeyey. waxaad helaysaa kalsooni iyo dhiirnaan dheeri ah adigoon isdifaacin qaladkaagan daboolin. waxaad ku qancin doontaa qofka marka hore ku eedeeyey in si qaldan wax loo fahansiiyey. ogow, difaaca waxaa ka shaqo fudud kana saameyn badan weerarka. marka aad tahay qof yaqaana wax uu ku hadlaayo iyo hoosh uu haya mas-uuliyaddeeda intay la eg tahay. xeelada lixaad, u fiirsa habdhaqanka qofka, ha eegin ballanqaadka. haddii aad isku qanciso hibil balan ayuu iga qaaday iyo muxumayn doono nolosheeda oo dhan, adigoo u wanaagsan haddii aad ka dareento isbeddel, ha ku surmin ballanqaadka, waayo ereyada waa raqiis marka uu ficilka meesha ka maqan yahay. haddii aad rabto inaad noqoto qof ay adag tahay in la xakameeyo, cidna ha ka ogolaanin bahadil iyo ficil xumo. si walba aad u jeceshahay qofkaad ka weydo daacadnimo, jacayl, ixtiraam, qiimo, isaga tag xitaa haddii aad qofkaas dunida ugu jeceshahay. xeelada toddobaad, si fiican u baro luqada jirka qofka. kala baro dadka. dad baa ku wanaagsan jilinka, iyagoo ku hagaardaameynaya kuu jili kara inay ku wanaagsan yihiin. si indha la'aan inaad qof ugu kalsoonaato noloshaada uma wanaagsana. haddii aad dadkoo idil u malayso inay ku wanaagsan yihiin, waxaad la kulmi doontaa dadka ugu xun noloshaada. weliba xili aan waxba ka qaban karin ayaad ogaan doontaa hagardaamadooda. marka hasiinin qof kalsooni intuu u qalma in ka badan weligaa. xeelada sideedaad, haladoodin dadka iska dhiga inay dulman yihiin. haddii aad waqtigaaga iyo tamartaada ku bixiso mar walba arrimaha dadka mar walba ismaskiiniya iskana dhiga inay dulman yihiin, iyagoo og in aadan waxba u qaban karin, haddana isku day inay ku baarlaxowsadaan. ogow inaad halis ugu jirto in lagu xakameeyo adigoon ogeyn. haddii aad awoodo qofkaas inaad caawiso, caawi, balse iska ilaali qof shaqo ka dhigtay inuu dadku u jilo mar walba inuu dulmanan yahay inaad ku dhacdo debinkiisa. haddii aad rabto inaad noqoto qof ay adag tahay in la xakameeyo. xeelada sagaalaad, ereyada saxda ah isticmaal. haddii aad tahay qof ay ku adag tahay isla xisaabtan, dadkana kala xishooda inuu toos u weydiiyo qaladaadkooda. marka ay caado ka dhigtaan dadka mas-uuliyad daro, ma lihid kalsooni iyo dhaqan hogaamiyenimo. mar haddii aad mas-uul tahay ugu yaraan ganacsi aad leedahay, waa inaad taqaanaa isla xisaabtan adigoon cidna ku xadgudbaynin, waayo isla xisaabtanka dadka wuxuu xasuusiyaa shaqadooda iyo mas-uuliyadda
mas'uuliyadda ka saaran wax loo dhiibtay. Ha ku fikirin weligaa hiblaayo ama hibil wax igama halaynayo uma baahna in la xisaabtamo. Ogow isla xisaabtanku waa wadada kala ilaalisa maamulaha iyo shaqaalaha. Xeelada 10aad marka qof been kuu sheegayo kaliya indhaha si toos ugu eeg. Haddii aad xal u laacsanad qofka been kuu sheegayo sida ugu fudud aad ku ogaan karto beentiisa. Qofka been kuu sheegayo adigoon la doodin hadalkiisana beensan marka hore indhaha si toos ugu eeg si qoto dheerna u dhageyso. Waxaad arkaysaa qofkii uu hadalka tartarayo indhahaagana aan eegi karin maxaa yeelay beenaalayaasha uma dulqaadan karaan qofka si toos indhaha ugu eegaya marka ay been sheegayaan. xeelada 11aad weligaa hal wadaagin dadka shucuurtaada iyo arrimahaaga khaaska ah. haddii aad caado u leedahay inaad qof walba aad ku nafisto adigoo siindha la'aan ah arrimahaaga khaaska ah iyo shucuurtaada aad la wadaagto waxaad haysaa wadada burburka naftaada adigoon ogeyn. arrimahaaga iyo sirahaaga ha ugu dhigin dadka hubbay adiga dib kuugu isticmaalaan markaad wax yar isku dhacdaanba. si aad u noqoto qof ay adag tahay in la xakameeyo noqo qof aan cidna la wadaagin shucuurtiisa iyo arrimihiisa khaaska ah. xeelada 12aad ha difaacin xuduudahaaga balse ku khasab dadka inay ku dhaqmaan. haddii aad la kulanto waxyaabo aan kuu qarmin nolosha uma baahnid cid walba inaad ku dhahdo ilaali xadkeyga waxaas ha ila imaanin iyo waxyaalo kale. kaaga wanaagsan kaagana fudud inaad noqoto qof yaqaana qiimaha naftiisa cid walba si qaldan ula dhaqantana isla sekankaas jawaabtiisa siinayo. haddii aad noqoto qof aan aqbalaynin bahdil iyo liidnaan dadka waxay ku khasbanaan doonaan inay xuduudahaaga ilaaliyaan xitaa adigoon ku khasbin. xeelada 13aad u fiirso naxariista degdeg ah kadib isku dhaca. mar walbaad qof isdagaashaan kadib markaad heshiisaan u fiirso naxariista degdeg ah qofka kuu muujinayo. dadka badankooda markay heshiiyaan dadka qaar ayaa durba argudasho ku fikira iyagoo kuu muujinaya wanaag iyo furfurnaan degdeg ah kadib markaad heshiisaan. taxadarkaaga lahaa mar walba haddii aad rabto inaad noqoto qof ay adag tahay in la xakameeyo ha ku kasoomin weligaa naxariis degdeg ah kadib isku dhiciina. xeelada 14aad kubadal waan ka xumahay mahadsanid. haddii aad caado u leedahay in wax walba aad dadka ka raali geliso caadadaas halista ah kubadal mahadsanid. tusaale marka aad soo daahdo halka aad qofka dhihi lahayd iga raali noqo ku dheh waad ku mahadsan tahay sugitaanka aad i sugtay. dadka inaad mar walba kaga mahad celiso wanaag yar xitaa haddii ay kuu sameeyaan waxaad ku hanan doontaa qalbiyadooda si fududna waad u furan doontaa halka raaligelinta joogtada ah ay lumin doonto qiimahaaga iyo sumcad aad ku dhex leedahay bulshada. xeelada 15aad weligaa ha sugin ansixin. haddii aad u xayrnaato noloshaada adigoo sugaya qof si ay noloshaada isku bedesho ama aad dhahdo xaaladda hadda lagu jiro ilaa ay iska bedesho wax ma sameynayo nolosheedana wax kama bedelayo. ogow inaad tahay qof garan waayo awooddiisa iyo kartidiisa. haddii aad u baahato ogolaansho mar walba ogow waxaad lumin doontaa awooddaada. haddii aad rabto inaad noqoto qof aan la xakamayn karin cidnaha u xirin noloshaada cidnaha u xayrnaanin weligaa. waxa aad rabto inaad samayso samey adigoo cudurdaar u samaynaynin. xeelada 16aad aamusnaantaada u adeegso hub ahaan. haddii aad tahay qof ka hadla wax walboo taagan xitaa waxaan u qalmin in laga hadlo ka hadlo ogow hadalkaaga adiga ayaa qiimo tiray. ha noqon qof aan qiimeynin hadalkiisa. nabadaada ilaasho mar walba. haddii aad aragto qof aan qiimeynaynin hadalkaaga ciqaab kaga dhig aamusnaantaada. haddii aad rabto inaad noqoto qof aan la xakamayn karin inta aad hadlaysa ha ka badnaato intaad aamusan tahay si aad u noqoto qof aan la saadaalin karin noloshiisa oo dhan. xeelada 17aad fiiri dadka sida ay kula dhaqmaan marka aad maya dhahdo. haddii aad ahayd qof dadka aan maya dhihi jirin mar walba wixii laga dalbadana laga heli jiray hadda kadib xeeladan tijaabi qofka wax kaa dalbada xitaa haddii ay yihiin waxaan saas u weyneyn maya ma samayn karo ku dheh. waxaad kala baran doontaa dadka danaystayaasha ah iyo dadka kuu cudurdaari doona falcelin weyna aan samayn doonin marka aad maya dhahdo. haddii aad rabto inaad noqoto qof aan la xakamayn karin ku dheh maya dadka si aad u kala barato wejiyada u qarsoon dadka qaar. xeelada 18aad ku dhaqan sumaynta shucuureed. halka aad falcelin weyn samayn lahayd mar walba si aad u kala garato cidda ku danaysa ama cidda kugu danaysata isxanaaji mararka qaar. qofka ku daneeya dankaa leh wuxuu isku dayi doonaa inuu kula joogo ilaa xaaladaada iska bedesho. danaystayaasha sida keliya lagu garan karo waa in falcelin la sameeyo sida inaad isxanaajiso ama aad ka aamusto sabab la'aan si aad u garato qofka ku daneeya ama qofka kugu danaysta. xeelada 19aad hadafkaaga cidnaha la wadaagin ilaa aad ka xaqiijiso. ma is weydiisaa mar walba sababta hadaf walba aad qorshaysato uu kaaga fashilmo. haddii aad dhaqan iyo caado u arki jirtay in hadafka lala wadaago qof walba adiga ayaa islugeeyey qof wanaagsan iyo qof xunba cidnaha la wadaagin qorshayaasha aad ka leedahay nolosha maxaa yeelay dadka ma qaribi karaan wax aysan xog ka haynin. aamusnaan ku sameey hadafkaaga si ay guushaada dhawaaq dheer u samayso. xeelada 20aad yaani ammaanta ku indhitirin. haddii aad tahay qof marka la ammaano oo keliya howsha si adag u qabta ogow waxaad tahay qof la xakameeyey. ammaanta mararka qaar waa shabaq lagu soo dabo dadka la rabo in lagu danaysto. qofkii ku ammaano u mahad celi balse qalbigaaga ha raacraacin ammaan walba iyo dadka ku ammaanaba. haddii aad jeceshahay inaad noqoto qof ay adag tahay in la xukumo ammaanta dadka noloshaada ay saameyn weyn ku yeelan wax walba aad qabanayso u qabo si dhammaystiran adigoo waajibkaaga gudanayo. ha u qaban in lagugu ammaano sida aad hoosh u qabatay
xeelada 21aad noqo qof aan la saadaalin karin. haddii aad tahay qof lasii qiyaasi karo waxa uu ka xanaaqo iyo hadallada dhibaya waxaad halis ugu jirtaa in lagaa soo weeraro meesha aad ka jilcan tahay. haddii aad noqoto qof aan la fahmi karin marna wax ka xanaaqa marna aan ka xanaaqin cadowgaaga way ku adkaan doontaa inay kaa helaan dulduleelo ay kaa soo weeraraan. haddii aad rabto inaad noqoto qof aan la xakamayn karin marka hore noqo qof aan la saadaalin karin. xeelada 22aad marka ay dadka kugu hareeraysan wax walba isla wadaagaan ka digtoonow. waxa isla wadaagista xaddaafka ah waxay doonaan ha noqdaan waa halis. haddii aad adigana noqoto qof si indha la'aan ah dadka ku hareeraysan wax ula wadaaga waxaad halis ugu jirtaa inaad noqoto qof aan waxba u qarsaneyn noloshiisa. inta aad caadi moodo in wax walba lisla wadaago sida sir iyo waxyaabo kale waxaad u samayn doontaa cadowgaaga warma af badan xilligay doonaan kugu soo weerari karaan. haddii aad rabto inaad noqoto qof aan la xakamayn karin jooji ku dhexmilanka xaddaafka ah ee dadka. xeelada 23aad haladoodin dadka caadifada badan ka taxadar inaad la doodo dadka dareenkooda aan kontarooli karin maxaa yeelay markay caroodaan ma qariyaan siraha dadka hortooda ayay kugu fadeexan doonaan. midda ugu daran haddii ay abaal hore kugu galeen way kugu sheegan doonaan wax walba ay hore kugu qabteen. haddii aad jeceshahay inaad noqoto qof aan la xakamayn karin iska ilaali inaad la doodo weligaa dadka caadifada badan. xeelada 24aad markuu qofku eedaayo si xaqdara ah weydii. dhammaanteena eeda waa necebnahay balse markuu qofku eedaayo weliba si xaqdara ah kugu eedaayo inta aad caroon lahayd qayle iyo dood dheer isku dari lahayd weydii qofkaas waxa aad ka samaysay ama wax uu kugu eedeeyey. inaad xaqaaga isdifaacis iyo qayle ku dhacsato waxaa kaaga fiican kaagana fudud inaad dadka ka jaahil bixiso wax walba ay kaa tabanayaan qayle iyo dood la'aan waayo qofka saxan si dhabna isugu kalsoon uma baahna xanaaq iyo buuq inuu isku difaaco. xeelada 25aad baro sida looga baxo dooda dhexdeeda. haddii aad weligaa aaminsaneed in dood walba in lagu guulaysto ay karti tahay waddo saxan ma aadan haynin marka ugu horeyso iska ilaali inaad noqoto qof dood badan. marka xigta dooda qaar ka tanaasul haddii ay saamaynayso sumcadaada maxaa yeelay xilliga dagaalka lagu jiro xitaa dib u gurashada waa xeelad dagaal ha ku bixinin waqtigaaga iyo tamartaada in cid walba sax iyo qalad aad dood kaga guulaysato. haddii aad rabto inaad noqoto qof aan la xakamayn karin xeelada 26aad isticmaal magaca qofka marka aad wax ku heshiin la'dihiin. xeeladan haddii aad barato waxay kuu fududaynaysaa inaad qofka si fudud wax kaga dhaadhiciso xitaa qofka haddii uu xanaaqsan yahay magaciisa ku bilow. soo celcelinta magaca qofka waxa ay saameyn ku yeelanaysaa qofka kale waxayna kuu fududaynaysaa qofka inuu ku dhageysto. qofka haddii uu isdejiyo si uu kuu dhageystana waxaa kuu fududaan doonta inaad wax walba ka dhaadhiciso. xeelada 27aad guushaada qiil ha ugu dhigin dadka dartooda inaad u guulaysatay xitaa haddii aad tahay qof noloshiisa horumariyay guul weynna gaarsiiyey. haddii aad sabab kaga dhigto inaad guul u gaarayso dadka ku nacibsay ay u arkaan adigoo guulaysanaya adigoo guulaystay xitaa waxaad noqonaysaa qof qalbiga ka buka. ogow adigoo guulaystay ayay dadka qaar dhaliil kuu raadin doonaan. ha u samaynin wax walba qof inuu kugu naco ama inuu qof kugu jeclaado. guush micnaheedu waa inaad u dagaalantaa wixii aad doonaysay. farxadda guushan waa inaad jeclaataa wixii aad kasbatay. xeelada 28aad u fiirso sida ay dadka kaga falceliyaan markaad guulaysato. qofka fashilmay cadowgiisa inuu wada arko waa ay adag tahay waayo cidna ma danayso balse qofka guulaystay indha aan hore lagu eegi jirin ayaa lagu eegi doonaa. marka u fiirso qof walba sidoo kula dhaqmay marka aad guulaysatay waxaa kuu soo bixi doona kuwa kula jeclaa guushi inaad gaartay iyo kuwa si xun kaga xumaaday guushi inaad gaartay maxaa yeelay dadka carabkooda hadduu wax qariyo indhahooda iyo luqada jirka ay sameeyaan ayaa runtooda banaanka keenta. xeelada 29aad ku kalsoonow ficilada qofka ka badan hadalkiisa. waxaa aad ugu fudud dadka inay hadal macan kugu soo jiitaan iyagoo xitaa been kuu sheegaya. weligaa ha ku qiimaynin qofna ereyadiisa qofka ku qiimay ficiladiisa. dadka beenta shaqadooda tahay aad ay ugu adag tahay inay iswaafajiyaan hadalkooda iyo ficilkooda. si aad u noqoto qof ay adag tahay in la xakameeyo noloshiisa dhan inta aad waqtigaaga iyo kalsoonidaada siin lahayd hadallada la qurxiyey ku bixi waqtigaaga iyo tamartaada inaad u fiirsato ficilada dadka ay sameynayaan. xeelada ugu dambaysa xeelada 30aad baro inaad ku raaxaysato kelinimada. haddii aad marna shaqo ku jirto marna familigaaga aad la joogto marna asxaabtaada aad la qaadato huwaal farxad waad heli doontaa balse xur buuxa ma ahaan doontid. si aad u noqoto qof markuu dareemo daal rajo xumo niyad jab keli noqo si aad u xuub dhacsato waxaad noqonaysaa qof firfircoon adkaysi badan la tashta naftiisa maxaa yeelay kelinimadu waa saaxiibka naftaada. isbuuc walba mar la fariiso naftaada si aad u saxdo wixii kaa qaldama una sii wado wadada hadafkaaga ku geyn lahayd. ugu dambeyn daawadaha sharafta leh halkan haddii aad nala soo gaartay aad umahadsan tahay. haddii aad ka heshay muuqaalkan like sar la wadaag asxaabtaadu sheer u dheh. intaan muuqaalkan la cinaa ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabad iyo horumar.